gadaal u sii ordaysa. Gabadhii ayuu daba orday oo way ka sii cararaysaa, wuuna gaari waayay. Haddaba waqtigii ayaa dhammaaday ee 6 saac ahaa. kolkaas ayuu iska soo laabtay. Wuxuu u yimid ninkii xigmad badanihii ahaa, wuxuuna u sheegay waxyaalihii uu soo arkay oo dhan. Kadib wuxuu ku yidhi, anaa ku fasiray waxaad soo aragtay, bal i dhegayso. wixii dhalaalay ee aad usha ku dhufatay ee qarxay oo labadii buurood inay isqabsadaan sababay waa fidno. fidnadu marka hore way hurdaa, markiisa la toosiyo dhib weyn ayaa yimaada iyo khasaaro. gurigii quruxda badnaa ee aad la kulantay, gudahana saxaradu ka buuxday, waa taariku salaad, qof salaada aan tukan. waayo qofka aan tukan korkiisa labis ayuu xiran yahay. waayo qofka aan tukanin korka labis ayuu xiran yahay, jirka waa qurxinayaa oo dishiisa wuu qurxin karaa, balse qalbiga waxaa ka buuxa saxaro. waayo waa qalbi aan xusin oo sujuudin oo aan xusuusan. ratigii keynta barwaaqada taagnaa balse qadnaa waa baqaylka. waayo baqaylka xoolihiisa cidna wax kama siiyo, isna kuma baahi baxo oo wuu ku qadan yahay, waana arrin dhibkeeda leh. ratigii xubnihiisa la iska cunaayay ee aan danta ka lahayn waa deeqsiga. waayo deeqsiga xoolihiisa dadka oo dhan ayaa cunaa, dhibna uma arko, naftiisana uguma baqaylo, dadkana uguma baqaylo. gabadhii gadaal u cararaysa ee aad soo aragtay waa adduunka. waayo adduunku weligii daba orod gaari maysid. allow khayrku sid jirona waafaji.